taliyaha guud ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Somaliland General Maxamed Aadan Saqadhi Janno Gale oo dardar gelinaya howlaha shaqo ee qaranku igmaday ayaa maanta soo gaadhay gobolka Gabiley waxaana taliyaha guud barkantaroorka bari ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka Gabiley ku soo dhaweeyay barsaab ku-xigeenka gobolka Nagusmaa barsaabka gobolka Cali Case maayarka magaalada Arabsiyo waxaana halkaasi taliyaha guud shalaan sharaf ku siiyay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska oo hogaaminayo taliyaha qaybta gobolka Gaashaanle Sare Axmed Saciid Maxamed taliyaha iyo wafdigu hogaaminayo ayaa u soo kicitay magaalooyinka Arabsiyo iyo Gabiley oo taliyuhu kormeer indheedheena ku marayay saldhigyada magaalooyinkaasi una kurgalaya xaaladda saldhigyada iyo ciidanka iyo hanaanka shaqo ee bulshada ay ugu adeegayaan saldhigyadu waxaana taliyuhu saldhigyadaasi kala duwan uu marayay ciidamada u jeedinaya hadallo la xidhiidh adkeynta nabadgelyada ilaalinta sharciga sareynta sharciga iyo sidoo kale ballanqaadyo iyo dhiirigelino intaasi kadib wafdiga horkacayo taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland General Maxamed Aadan Saqadhi Janno Gale ayaa u jarmaaday banka mashruuca Wajaale oo safarka socdaalka taliyuhu ku qotamay isla markaasina ciidamada booliska ee banka Wajaale ku sugan ee halkaas ka beereen dalagyo kala duwan qaybka isku filnaanshaha qaranku igsanayo waxaana banka mashruuca Wajaale xilligan ka socda goynta iyo jarista dalagyada kala duwan ay beereen ciidanka booliska Somaliland ee banka mashruuca Wajaale taliyuhuna uu kormeer indheendheena ku maray warno halkaas ka hadlay taliyaha booliska banka Wajaale Sheekh Maxamed oo faahfaahiyay dalagyada ay beereen ciidanka boolisku taasoo ilaahay barwaaqeeyay waxaan kaaga mahadnaqaynaa kormeerka aad noogu timid adigoo ahmiyadii koobaadna siiyay maanta kormeerka taliya aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa taliya mashruucu waxaan noqonnay qodaalkii aan noqonnay 744 saacadood ayaan noqonnay oo isugu jira galey 20 galeeya iyo 30 digira 8 iyo 694 haruura dhammaan taliya way baxeen waxaan ku sheegayaa galeydii bar waanu turno way xireysantahay qaybna waanu soo jarnay madaxii waanu xireyno waad aragto wuxuu yaalaa meesha digirtii way taalaa taliya halkii madaarada marka waxaan ku leenahay taliya ku soo dhawow aad iyo aadna waan kugu mahadnaqaynaa dadka waxa halkaas ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Gabiley Gaashaanle Sare Axmed Saciid Maxamed iyo gudoomiyaha degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi taliya sida la sheegay halkan aynu joogno waa banki Wajaale waa beerti Blaiska runtii farxad bay noo tahay waanuna kaaga mahad celinaynaa booqashadaadan aad ku soo beegtay xilli hawl adag jirto oo dalagii beeruhu uu go'ayo oo ciidanku uu shaqo iyo heegan ku jiro runtii aad bay sharaf iyo farxad noogu tahay inaad nala aragtid hawsha meesha taalla iyo waxa tacab soo go'aya midda kale waxaan aad uga mahadnaqayaa taliyaha dardaaranka wanaagsan oo diinta ku salaysan ee had iyo jeer ilaa maalintii xilka qabtay anigana gaar ahaan ii farayay ciidankana cidii uu la kulmaba uu u dardaarmay waxaan rajaynayaa inaanu weelayn doono oo annaguna aanu dhago maaragtay lagu shubay oo dhaqan geliya aanu noqono amaanuna dabagelaynaa awaamiirta taliyaha iyadoo wareegtooyin badan ka soo baxeen oo toosinta ciidanka ku saabsan runtii taliye waxaa ciidanka booliiska ee gobolku haba tiro yaraado riboodkiisa iyo warbixintiisa waad naga haysaa waa ciidan heegana oo shaqo diyaar u ah oo runtii shacabka aad ugu adeega dhammaantiina ama badankiisuba waa ciidan dhaqan wanaagsan oo akhlaaq leh insha allahu tacaala inay tawjiihaadkaaga iyo awaamirtaadana ku sii daraan oo ay dhiirigelin noo noqoto socodkaaga iyo talooyinkaaga ayaanu rajaynaynaa guud ahaan gobolka iyo degmooyinkiisana waxaanu nahay unit isku duuban oo shaqada wada qabta oo baahiyaha ka wada jawaabo oo iskaaba ayaanu nahay waanu kugu soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu ku leenahay taliye ku soo dhawow banki Wajaale iyo kuurgalka guud ahaan saldhigyada iyo shaqada ciidanku hayo generale horta waxaanu ku ducaynaynaa waxaan leenahay xil culus baa lagu saaray xilka culus ee lagu saaray ilaahay ku fududeeyo mashruucii Wajaale degmada Wajaale ayaa joogtaa mashruuc sida taliyuhu sheegay sanadka uu baxay waxaan rajaynaynaa sidii aan madaxna iyo mijahaba uga goyn lahaa haruurka aynaan mucaawinanka dalalka jaarkeenana mucaawinka si aan ugu gudbin lahayn ma falowgeed qabanayna saadaraadad holta hal baabuur oo cusub oo aanu Allah maxariista marxuumkii laftiisii isku ogeyn kaana inaad noogu soo dadaashaan taliya horta jeclaan lahayd sokor waxa halkaas ka hadlay barsaab ku-xigeenka gobolka Nagusmaa barsaabka Cali Case oo ku dheeraaday doorka ay ciidanka ugu fadhiyaan bulshada mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa maanta inuu taliyihii guud ee ciidanka booliska Somaliland General Maxamed Aadan Saqadhi dabagale uu maanta inoogu yimid safar ugu kurgalayo xaaladda ciidanka ee booliska ee gobolka iyo xaaladda beertan mashruuca booliska run ahaantii taliye aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaynaa
adiga oo ay tahay safarkii ugu horreeyay intii aad xilka qabatay aad ka soo baxday caasimadda oo aad annaga noo soo baxday gobol gabiley ahaan adiga oo u kuurgelaya howlaha ciidanka boolisku ay gacanta ku hayaan aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaynaa gobolkana waa kugu soo dhaweynaynaa booliska saraakiisha booliska haddaanu nahay iyo madaxda degmooyinka iyo gobolkaba waxaanu nahay hal tiim oo wada shaqeeyaan nahay maalin oo dhan markaanu howlaha soo qabanno guud gelinka dambe ilaa habeenkii waxa noo ah xarun talis waxa noo ah taliska qaybta oo aanu heegan ku nahay oonu wada shaqaynaa xaalad kasta aanu kaga warhaynaa markaa ballan buuxdaanu ku qaadaynaa inaanu gobol ahaan annagoo wax badanoo hore booliska ka soo qabanay oo sidii aad soo aragtay saldhigyada ugu badan aanu anagu gobol ahaan dhisnay gabadhi waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska somalilan jenaraal maxamed aadan saqadhi janno gale shaqayno waxa ii farxada runtii maanta inaan halkan idinku imaadoon hawshiina bal qiimeeyo iyadoo waqti gaaban aan joogay waxa ilaahay qadaray oo aniguna aanu balaankayagii ku daray inaan balwo jaale ka soo bilaabo markaan hargeysa ka baxo sababtoo ah ama halkan idinka hawsha idisii haysato banka beeralayda anigu waan soo marayoo raggii horreysay banka joogi jiray baan ahay madaxda kaan jiray marka hawsha ka jirtaan garan karaya markaas saasaan idi priority-ga ay u ahayd markaa inaan bal waxaasun u kuur galo ciidan ahaana aan idiin eego hawsha meesha taaliya banka bal waxa ka baxayna aan eego aan qiimeeyo ayaanu yimi waan arkaa haruur badan baa ka baxay alxamdulilaah himiladeennuna waxa weeyaan bini'aadmigu wuxuu ciil baxaa markuu isagu wax qabsado ayuu ciil baxaa inaynu ciil baxnayn inagu waxaynu beeranayna aynu cunno oo waxaynu cunno aynu helno horta inagu ciidan ahaan boolis ahaan iyo ciidamada kaleba fikirka ku jira wakaa marka insha allah qalabkii fududaynayna waynu heli cagaf goys kuwa gooyana waynu heli kuwii beera waynu helno markaa himiladeennu waa taa iminkada lafteeda mid badan baa baxay waynu isugu iman doonaa ciidankana waan soo kordhin waa wax idinka baalla weyn marka insha allah ciidanka waan soo kordhin doonaa horta inay hawsha ka qayb qaataan idinkana de waan idin hambalyeynaya hawl aad u badan baa runtii qaysaan iyadoo hawshii qaranka aynu u wada taagannahay haddana waan arkaa inay hawl haysaan waan idin hambalyeynayaa taas waa taa saddex qodob oo kale raba inaan idinku dardaaro oo aynu beenta iska ilaalino oo aynu maaragtay khiyaamada iska ilaalino oo aynu daacad noqono oo aynu shaqada daacad noqono waayo qofku markaad ilaahayna ballan baad ka qaaday dadkiina ballan baad ka qaaday markaynu shaar ka xidhannay waxaan hubaa inuu ilaahay risiqeena yarna inoo barakaynayo carruurtana inoo barakaynayo dumarkana inoo barakaynayo shaqadeennuna wanaagsanaanayo ilaahay barakaynayo waxaasoo dhanna waxaa asalo inaynu ilaahay ka baqano man camila saalixan min dakarin oo unthaa wahuwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan dayibatan walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun ilaahay baa yidhi waxay ka warramaysaa qofka toosnaada inuu adduunyada nolol wanaagsan ku noolaanayo nolosha wanaagsan maba garan karaba maba sheegi kartid haddaad intaa samaysood baqatidnood ilaahay isku dhiibtidnood ilaahay ka baqatidna waxaynu noqonaynaa mujaahidiin baynu noqonaynaa waayo dadkaynu u shaqaynaa khamri baad tirtiraysaa tuug baad tirtiraysaa cadaaladdarraad tirtiraysaa waxaasaad ka shaqaynaysaa qofka qaadka cunaya bahalkaa naftu doonaysaad miliqsanayso waa rasaasaad isla dhacayso been buu kuu sheegayaa cibaadaduu kaa kaxaynayaa lacagtiibuu kaa cunayaa caafimaad darruu kugu ridayaa waktigiibuu kaa dilayaa waxa midda kale waxaan doonaya xidhiidhka dadweynaha iyo inaga inoo dhexeeya inaynu wanaajino ta laysku haystaa wataa taynu doonayna wax ka bedelno wataa xidhiidhka inagii dadweynaha inoo dhexeeya waynu bedelaynaa waynu wanaajinaynaa marka qof lasoo qabanayo qofkaa dhibanahe kuusaa shkutada waa la raacayaa si wanaagsanoo edabla loogu soo qaadka 2 goorba waa mamnuuc 3 goor intaynu steeshkaa joogno waa mamnuuc markaynu labisana inaynu qaadanaana waa mamnuuc gaadhigeennu inuu istaagay sigoo calankaa madowna uu iibsadaana waa mamnuuc ninka doonaya rasaas la dhacayo aqalkaaga dhexdiisa isla dhac lama ogola iska daaya idinkana waa idiin wanaagsantay markaynu cabsi la nimaadno xagga ilaahay iska dhisno qaadkaana iska dayno salaada aynu wada tukanno muwaadin qof waliba uu keligii anaa qarankan wakiilka ah xidhiidhka dadweynaha inaynu dhexeeyna aynu wanaajino qofkii si wanaagsan u soo qabanno qofkii si wanaagsan u baadhno qofka maxbuuska aynu si wanaagsan u ilaalino anna mid baan ballan qaaday 2 qodob baan ballan qaaday mid waa cadaalad wixii aan karo ilaahayna waxaan ka baryay inuu ilaahay karsiiyo oo cadaalad ay waafajiyo madaxdana waan ku ilaalinaya kuwan kale xukuma anigu cadaalad ilaahay ma dhamaystiri kara laakiin aniga dadaalkayga waxaan ballan qaaday ragga iga aan xukumana aan ku ilaalinayaa madaxweynuna macallin igu yahay ifaray ilaahayna ifaray waxa weeyaan inaynu cadaalad dhexdeena isku xukumo haddaad darajo xaq u yeelatana waan ku siinaya haddaad بريميا كلا حق يرتون كسيريا هذا حرق حق يرتون وكحرية وحن هبا إن أتاكو كلا بحسان ميل أهيك ستامر دين سمين يعني وإنك ميل جاد وشر هالكا أسكر يقول سي سبعة مدرجة يكسده أما مشاهر كوكرنا إلى هاي اللبضة بو ينوكرين إن شاء الله لكن الشقة ولا كسبير دورنا إن نقبلنا وين الكورس سوق عنه هذا الخيجا ولاية قلبي جلي
nin walba maanta laga bilaabo awal qaranka wakiil been kare wala talaala kaliya qaranka wakiilka ninka mijin qaada rifaya himilo male ma gaari karo waayo been buu ku sheegay habeenkood baa qalbeerad dhisisa hoosta ka daroola subaxdina uu dubaya dam barka waran laga dadayso waxbarashaad bilaabi dhiishaada heerkeeda ku muuqan maalinba halkaad ku socoto fishankaagu uu ku muuqda kolbeyntaad u jirto waa inaad fishan yeelataan fishan beriyan kuliyada ku jirnay gaaladu if you have not objective you have to waste time haddana ujeedada waqti baad siinaysaa gaaladu waxay waa shimbir duulaysan qofku waxa higsataa nin walba inuu taliye ciidan iyo wax ka sareeyo noqdo himiladaas waa talagu beebar qofku beel barayo baradegta taawanu ku kala saarinayna wata waxaan doonayaa inaad dhiirataan inaad wax qabataan wareegtooyinkii hal ilaaliyo madaxduna way maqlaysaa wareegtooyinkii aan soo saaray amaamiirta ahaa waa in la ilaaliya qaadka waa mamnuuc waa in la ilaaliya waa in ninka cuna la qabtaa maxkamad baa saaray khamriga iyo waxaan xun oo waynu tirtirnaa baynu nidhi waa in la tirtiraa nin walba halkaad ku aragta soo sheeg waxaan rabaa qolo walba halkay xukunto waxaynu nidhi xilliga dadweynaha inagu laga bilaabay inuu wanaajino xilli dheeraad aynu saaro waa in la wanaajiyaan hela waxa aynu ku ballanay oo dhan waa inaynu kor soo qaadnaa wareegtooyinka furana askarta isfasaxay iska baafi saara dhulka qaada no askarigu xirada fasax buu ka baxaya askari isfasaxaya ma jiro taana iska ilaalin isgaarsiya kelmadeeda weelay ninka aan tukano imika bilow hadda naftu ka baxda ka waran imika adoo soo taagan oo miliqsan iyo bijin qaada doonaya oo tukanay ka waran maxay ilaahay hortigaysa salaada hadda bilow hadda shaydaanka iska naar waayala xaji telefishinka qaranka Soomaaliland banka mashruuca wajaale ee gobolka Gabiley.